gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobadareed ayaa gaaray magaalada Badhan ee xarunta gobolka Sanaag. Shacabku waxay u hamuun qabeen gudoomiyahooda waxa ayna sugayeen imaanshihiisa, waxayna u soo dhaweeyeen si aad u heersaraysa. Boqolaal shacab ayaa isugu soo baxay banaanka hore ee magaalada, waxaana gudoomiyuhu dhex lugayay bartamaha magaalada Badhan, halkaas oo ay garab socdeen boqolaal shacab ah oo ka cadhaysan hagardaamada lagu hayo shacabka gobolada Sanaag iyo Highland. siba dhacdadii foosho xumeyd ee ka dhacday baarlamaanka Puntland oo ay dadka ku laayeen kooxda tabarta daran ee xilligan ka talisa Puntland. gudoomiyuhu waxa uu shacabka kula hadlay meel fagaara ah, intaasi ka gadaalna waxa uu kulamo gaargaar ah la qaatay cuqaashi iyo waxgaradka gobolka. shacabku waxay aad uga hadleen dareenkooda iyaga oo sheegay taageerada iyo garab istaagga ay u hayaan gudoomiye Dhoobadareed, waxaana halkaasi laga tiriyay maansooyin looga hadlayo waaqiciga dhabta ah ee xilligan kan jira Puntland. gudoomiye Dhoobadareed ayaa sidoo kale waxa lagu soo dhaweeyay magaalooyinka Dhahar, Xingalool, Balibusle iyo Mindhicir. shacabka ku dhaqan deegaamadaas ayaa Dhoobo u sheegay inaanu ka walwalin xaggooda ayna la garab taagan yihiin hiil iyo hooba. waxaa kale oo ay shacabku ugu baaqeen siyaasiyiinta goboladan ka soo jeeda ee u hanqaltaagaya boosaska lagu bahdilo dadkooda inay ka waantoogaan qaadashada duliga. taageerada ay dadku u muujiyeen gudoomiye Dhoobadareed waxa ay fariin cad u diraysaa kooxda yar ee Puntland la wareegtay xilligan, kuwaasi oo hadda dhexda uga jira khalkhal siyaasadeed oo dhinac kasta leh. kuwii dhigay halkay taallo dhulka carabi laga iibiyo buu dhiil ku soo galay inayse Dhoobadareed hadduu dhinac maroo diiday mas'uulii ku jiro lama rabo oo ceeb ka dhiidhiyay inuu daliis dhaafsiyo buu dhigay shaxdeedii istaaf aan wax dhagara iyo ogayn dhiilo lagu seexday nishiikaha intuu la yimi oo dhowda kaga saaray dharaartii dadku xalay dilay oo goobtu dhiga yaalla oo aan dhaawicii cidi u tegin dhiigbaxa u liitay xildhibaanku sheegyada intuu shilimadu u dhiibay sharci dhaaf kolkuu mooshiiri Dhoobo kaga keena ay kaga dhawaaqeen raqda iyo meydka dhaladiisa khaladku weligii waa dhici jiray ee dhaygag waxa reebay xumaanta haddaan loo dhammayn dhoof cadiyo wiilba dhibaatadu maxay qaar hadla oo dhaahiyo u weyday dhaqan iyo siyaasiba maxaa dhagaha loo awtay. koox bay meeshuu gacan gashay gruub bay u gacan gashay marka waxaanu sheegaynaa gruubkaas haddaan talo guud laga yeelan annagu waa ka tashanaynaa waana ka midoobaynaa. yaqaan mabdac macruufa oo nala ku yaqaan baanu leenahay. mabdacaas wuxuu yahay Soomaali ee dadka wax magaradka ay sida muuqata ay ka tashadeen oo go'aanka ku dhacday oo ahayd weerarkii foolxumada lahaa ee caasimadii dadku wada lahaayeen laga fuliyey lagu aamusay lana codeeyey damiir la'aan darteed iyadoo dhaawacii iyo dhimashadii iyo dhiiggiiba ay yaalaan. aad baanu uga xunnahay dareenkayga annagoo taaga muujinaynana wixii dee ka dhacay meesha waxay la tahay waa wada dhegaysanayna maanta isaga sheekayn mayno wixii taladeeda ah iyo arrinteeda si laga yeeli doonana dee waxay u taallaa waxgaradka iyo isimada iyo cuqaasha iyo deegaanka. waxay la tahay awalba waxbaa la isku darsaday, waxbaa la isu keensaday. wixii la isu keensaday haddii sidii lagu talagalay ay noqon waayaan dee waxay la tahay cid walba taladeeda iyo say yeelayso iyada u taallaa soo maaha. caadifad baa jirta. waxaan ka codsanayaa ragga arrinta ka dhacday Garowe waxay u taallaa waa ragga meesha dhigtaan baan ku gowracanahay dumar baanu nahay. waxaana meesha ka saaray waa gruub danaystayaal ah oo aan in badan sheegay, laakiin waxa ka sii dhadhan xun gruubkaasi isagu waa go'aansaday waxaan inuu sameeyo. mudabbar bay ahayd, taray ahayd, qorshay ahayd, muddo badan baa lagu jiifay. barnaamijkii siyaasadeed waa u suurtogeli waayey oo waanu kaga adkaanay barnaamijkii siyaasadeed. waxay marka ku kaliftay inay xoog iyo lacag isticmaalaan, weliba xataa mid way ku kalsoonaan kari waayeen. hadday xoogga ku kalsoonaan lahaayeen waxbay ahaan lahayd. xooggii iyo lacagtiiba way isku dareen.
waxaa kaloo dhadhanxumo kale ka sii ah dadkii dadkan mas-uuliyadda loo saaray ee la yidhi matalaadda shacabkay haystaan inay xataa dareemi kari waayaan lacag qaadasho iyo waxaa iska tuur xataa inay dareemi kari waayaan dadkay matalayeen oo ay matalaaddooda wateen oo dhiiggoodii iyo dhaawacoodii iyo maydkoodiiba yaallo xataa ay ka xishoon kari waayeen war bal aan maydka iska aasno dhaawacana aan iska qaadno dadkana aan samirsiinno ee dib inoogu dhiga xataa ay awoodi kari waayeen ee sidii la soo raafay amar si askarta loo siiyey oo meel lagu xereeyey oo la yidhi codaya waa dhadhan kale oo xun weeye oo aad taabasho leh taa marka waxa weeye isaga warrami mayno intaasaan kaga gudbayaa laba qodob baan anigu u socday labadaa qodob baan rabaa inaan la wadaago qodob wuxuu yahay maadaama aan mas-uulkiinni ahay maadaama aan siyaasigiinni ahay maadaama aad wax badan iga filaysaan maadaama aad ii hanweyn tihiin inaanan iska tegin ama iska cararin ama iska dhuuman ama iska seexane aan wixii ila gudboonaa aanan garan waayin oo ah dadkayga inaan dhex maro inaan tijaahiyo inaan u warramo inaan talo ugu baaqo inaan wanaag la raadiyo oo tii layga filaye waana ta ila gudboon marka inaanan garan waayintaa waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu yahay oo aan meelihii aan soo marayna aan kaga baaqay haddana aan ku baaqayaa waa tashii in laysugu yimaado tashigaasi waa laba qaybood qaybta koowaad sidii uu sheegayey daahir yuusuf cali ciid waa puntland waa cid kasta oo dhibsanaysa ama ka dhiidhiyaysa dhibaatada puntland hadda ka jirta ama puntland meesha ay hadda marayso cid kasta oo dhibsanaysa ama ay damqayso ama ay xanuun ku tahay ayaannu ugu yeedhaynaa baaqa iyo gogoshaa aannu dhigayno inay isugu yimaadaan puntlandna lagu badbaadiyo